danaha shisheeye duminta dowladnimada Soomaaliya dawaqnansanaanta mucaaradka Soomaaliya ayaa dardargelisay danaha Kenya ee Soomaaliya tan iyo markii uu bulshada damaca Kenya ee dhulka Soomaaliya Kenya waxay abaabuleysay kooxo damaceeda ku garabsiya waxaana kismaayo doorasho xoog ah ugu qabatay Axmed Madoobe hogaamiyaha Jubbaland waxa iminka Kenya ay ku dhawaaqday in dhul horle oo aysan ku jirin badeena ay baadayso ay kaga maqan yihiin Soomaaliya waxayna codsi u dirtay maxkamadda adduunka Hague وأي تالو دعوة بدأ الصومالية إيه كينيا ayaa ku doodaysa in dib loo dhigo kiiska inta doorashada Soomaaliya dhacayso farmaashana meesha ka baxayo waa sida ay qabto ilaa hadda musharaxiinta mucaaradka ee Soomaaliya ayaan ka hadlin damaca Kenya ee ku wajahan Soomaaliya waxayna tani cadeynaysaa inay Kenya doorashada Soomaaliya u wadato qaar ka mid ah musharaxiinta madaxtinimada ee Soomaaliya halka musharaxiintu ay madaxweyne farmaajo ay mar walba ku eedeynayaan inuu ku fashilmay hanaanka dawladnimada ee Soomaaliya iyo hogaaminta wasiirka warfaafinta Soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqay inaysan Soomaaliya aqbalaynin in dib loo dhigo kiiska badda ee Soomaaliya ee yaalla maxkamadda adduunka waxayna Soomaaliya codsatay in kiiska la qaado sida ogtihiin badeena oo ka mid ah xuduudaha dastuuriga ah ee dalka sida cirka dhulka iyo badda waxa dacwadayna gaga aynu maxkamadda dunida geysanay kadib markii dawladda dariska ah Kenya ay sheegatay inay badda qayb leedahay dacwadii aynu geysanay August 2014 ee laynaga aqbalay ilaa maanta 2021 taagan maalin walbana sidaan sheegi doona ay dib u dhigaysay dawladda Kenya ayaa markii afraad waxa ay shalay soo saareen qoraal ay rabaan inay mar shanaad dib ugu dhigtaan dacwadda mar afraad oo noqonaysa xilligoodii shanaad in la mudeeyo dawladda federaalka Soomaaliya saako khamiisa 12 February 2021 waxa ay maxkamadda cadaaladda dunida ICJ xarunteedu tahay Hague dalka Netherland ay u qortay warqad ay ku sheegayso Soomaaliya inay diyaar u tahay inay ka qayb gasho dacwadda oo la mudeeyay dhowr usbuuc kadib 15 Maarso 2021 isla markaana aynay dawladda Soomaaliya marna aqbalaynin dib u dhigis dambe oo afraad iyo shanaad sababtoo ah dawladda federaalka Soomaaliya waxay aaminsan tahay qaynuun yaqaanada duniduna ay isku waafaqsan yihiin justice delay is justice denied haddaad dib u dhigto xukun iyo maxkamad waxay ka dhigan tahay inaanad maxkamadda aqoonsanayn ama ku kalsoonayn ama aanad rabin inaad cadaaladda hor tagto ayay ka dhigan tahay markii koowaad maya sidaan idin sheegay hadda waxay noqonaysaa 15 March in la ilaahdaan mar afraad inta dib loo dhigo mar shanaad hal la mudeeyo dhageysiga dacwadda August 2014 ayaynu geysanay codsigii koowaad ee aynu gal dacwadeedka ku furannay July 2015 qoraalkii dacwadda ee dhinaceena inaynu badda leenahay oo uu dhulkan yahay dhulkii aabayaasheen iyo hooyayaasheen inuu baddani tahay badeennii dastuuriga ahayd ayaynu geysanay 2015 waxa la mudeeyay December 2018 in dacwad qaadis la sameeyo dib ay u dhacday Kenya codsatay markii hore waa ka warwareegeen laakiin markii dambe ay geysteen markii dambena dib ay u dhigeen sidoo kale 25 June ayaa la mudeeyay 2019 sida la wada socoteen wafdi uu horkacayo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mahad Maxamed Guuleed oo ku jiro xeeraalihii hore iyo tiimkii sharci yaqaanada ahaa ayaa dacwadda geeyay Hague 25 June 2019 si Kenya ay dib ugu dhigto dacwadda dhammaan waxay shaqadii ka eriday qareenadii difaacayay dacwadooda they fired all lawyers kadibna waxay maxkamaddii ka imaadeen iyagoo aan representation ama cid matasha dacwadooda oo u doodaan haysan waana nasiib darro dal dhan oo la sugayay oo yiri dhammaan qareenadii ii doodi lahaa shaqadii baan ka eriyay sabab markii la weydiiyana waxay yiraahdeen wana khiyaamayeen waxay u shaqeynayeen meel kale waxay codsadeen sanad in dib loogu dhigo maxkamaddu waa ka diiday gudoomiye ku-xigeenkii maxkamadda
gabadhu waxay tiri 2 bilood baan idisii November 4 ilaa 8 ayaa la mudiyay mar labaad ayay soo codsadeen oo yiraahdeen ilaa hadda loo yar maanaan qoranin maanaan shaqo gelin kontraadyo cusub lama gelin dacwadiina may daraas kareyne dib noogu dhiga ilaa June 2020 mar saddexaad ayaa June haddana la isla gaaray iyadoo la diyaar yahay dib baa loo dhigay haddana codsi dambe geystay tii ugu dambeysay waa tan dhowrka usbuuc ay ka dhiman yihiin 15 March 2021 kiina shalay soo saareen warqad xirlaaliyahooda guud oo soo saaray oo leeyahay ma iman karo sababtoo ah waxaan laga xaday ma abnoo muhiimaha oo aanu malaynayno inay dadkaanu isahayna gacantooda yani wax iska khuraafa waxaan kale ku doodeen oo cajiiba oo la yaab leh sheegashadoodan hadda ay rabaan inay dib u dhigaan waxay leeyihiin waxaanu ka maqlaynaa wararka naga soo gaaraya Soomaaliya siyaasiyiinta qaar kamid waxa weeye inaanay dawlad sharciiba ka jirin dalka Soomaaliya nasiib darro runtii ah oo ay doonayaan inay leeyihiin qaynuunada caalamiga ah waxay ku salaysan yihiin dawladu marka dawladii kula doodaysay ee ay sahayseen haddaad disku wala fadhigarayso tirada dalkaasi dawlad male macnaheedu waxa weeye waa ciyaar laba kooxood u dhaxaysa oo ay rabaan in la yiraahdaan kooxdan kale xaq uma leh ee garoonka ka maqnaato ama kaliya yaanu imanaynaa ciyaarayna ama imanba mayno oo waxay doonayaan inay ku disqualified gareeyaan keeskeena Soomaaliya dawlad kama jirto horeba waxay u doodi jireen Soomaaliya waxa jooga argagixiso iyo burcad badeed maantana waxay rabaan inay yiraahdaan dalka inta leeg ee dawladda ee sharciga ee baarlamaanada leh ee xukuumadda leh garsoor kale inay yiraahdaan dawladda kama jirto iyagoo ka faa'iideysanaya hadallo aan ka fiirsi lahayn oo siyaasiyiinta qaar ay ugu loogayaan ama ugu gowracayaan qarannimada Soomaaliyeed cadowga hadda sheekadii marka intii hore ee isla ogeyn way soo dhaaftay waxayna u eegtahay markay yiraahdaan dalka dawladda kama jirto ninba wuxuu yiri islaantii dariskeena indhalaan ma ku ogeyd haddana dad cunow bay ku darsatay inay dadka cunto Soomaaliya dawladda kama jirto macnaheedu markay leedahay Kenya waxay tusaale u tahay inay doonayso dalkan duulaankeedii qaban waxay kaloo muujinaysaa hoggaanka toosan ee dalka aragtidii aanu qabnay ee ahayd in dalka la difaaco inay saxahay ay shacabka Soomaaliyeed sheegaysaa damaca qaawan ee loo difaacayay dalka inuu ahaa aragti sax ah oo ka timi hoggaan sax ah oo aragti leh arinta dib u dhigista dacwada oo markii la rafraad la rabo in dib loo dhigo oo aanu saaka diidnay waxay dhabar jab ku tahay haddii mar afraad dib loo dhigo oo mar shanaad la geeyo cadaaladda adduunka iyo sumcadda maxkamadda the credibility of international justice system waa arxjab waa dhabar jab waa runtii waxay qiimo dil ku tahay maxkamadda cadaaladda adduunka ee iyada lagu eeranayay in maalin walba inta warqad la soo qoro la yiraahdo ma geli karo dib noogu dhiga looyradii baan erinay hadda waxaan arkay ka xirlaaliyo oo qaar baa naga dhintay looyradii every day waa marmarsiin waxay aaminsan yihiin oo ay og yihiin inaanay badan lahayn waxay og yihiin inaynu helayno they never thought may filahaynin inay Soomaaliya awood leedahay qareenadeeda iyo xukuumadeeda iyo dawladeeda ay ku difaacan karaan cirkooda dhulkooda iyo badooda dawladeenu waa beentood dalka dawladda ka jirta iyagu waxay leeyihiin dawlad ma tiidin dawlad ma jirto waxa tihiin dal anarkiya oo fawda ah waa beentood sharciyad baynu haysanaa sharciyadii baarlamaanku ansixiyay baynu haysanaa kursi banaanaado xildhibaan ma jiro ilaa uu xildhibaan kale halkiisii yimaado oo la soo doorto kursi ra'iisul wasaare oo banaanaadana ma jiro ilaa la soo magacaabo kursi madaxweyne oo banaanaadana ma jiraan ilaa inta teendho la tago doorasho la qabto dabadeedna la doorto madaxweyne haddana iyagoo dad ujeedooyin gaar ah ka faa'iideysanaya ayay maanta rabaan badeeni iyo dhulkeeni inay ku xalaashadaan dalku dawlad malaha waxaan rabnaa in shacabka Soomaaliyeed ay ogaadaan isku xidhnaanta Soomaaliya dawladda kama jirto oo way dhacday iyo maxkamadii adduunka ay annaga noo xukun ama dib noogu dhig
sida qoladii jaadka ee miiroogo ay lahaayeen 100 kun oo qof baa naga shaqaale waxaanu sugaynaa dawladda cusub ay iman doontaa madaxda iyadu noo sheegtay inay noo soo celin doonto shaqadii iyo jaadkii waxa soo dhamay waxay muujinaysaa runtii in dalkan sidaan hore u sheegnay duulaan lagu yahay waxaan rabnaa siyaasiyiinta iyo madaxda Soomaaliyeed markay noqoto difaaca dalka in meel looga soo wada jeesto waxaan rabnaa inaanay dadka aynu ishayno ee isku hayno basiga dhulka iyo cirka iyo badda inaanay fursad siinin waxaan rabnaa inay ka hadlaan siyaasiyiintu aanay aamusin maxay u aamusan yihiin siyaasiyiintu marka Kenya la soo qaado maxay u aamusayaan marka badda la dhacayo la soo qaado maxay u aamusayaan marka dalka lagu soo duulo maxay u aamusayaan waxaan doonaynaa shacab siyaasiyiin xukuumad baarlamaan dawlad goboleedyo inaynu iskaashano oo difaaca dalka uga soo wada jeesano waxaan ku soo gabagabeynayaa annagu waa wadaynaa dacwadda badda warqadda aan saaka qornayna waxay muujinaysaa in xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxdeeda madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda inta kaleba ay ka go'an tahay inaan go'aaga hadii lagu qabsado ama shaatigaaga waa inaad ka garbaxdo aad cadaalad tooto aniga ale aad cadaysato procedure-kii baynu marnay waynu cadaysanay inaynu inagu leenahay iyaguna waa ka warwareegaya ma aqaan waxay sugayaan